habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmiye caawana waxa ugu dooron diyaarad sidee xildhibaano iyo xubno kamid ah maamulka gobolka Gedo oo maanta lagu rusaasiyay magaalada Garbaharey maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad oo maanta la horgeeyay askar lagu eedeeyay in iibsadeen qoryahoodii maxkamadda sare ee Puntland oo go'aan ka soo saartay tirada rasmiga ah ee xisbiyada siyaasadeed ee Puntland ciidamada kumaandoosta Puntland oo sheegay in ay burburtay xabad joojintii magaalada Garowe laga dhaqan geliyay ra'iisul wasaare Xamse oo hay'adda UNHCR kala hadlay sidii wax loogu qaban lahaa barakacayaasha ku nool gudaha Soomaaliya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyay ku noqoshada miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2023 iyo tirada dad ku dhintay duqeymo culus oo raashku uu ka fuliyay dalka Ukraine oo sii korortay isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaan sida uu hore ugu guuleystay 3 sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay qulubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen وهابين استرينا تاريخ waxay ku beegan tahay 11 bisha 7 sanadka 2023 Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya maajirada Axmed Saciid Axmed bismillaahir rahmaanir rahiim dhageysla ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan diyaarad sidee xildhibaano iyo xubno kamid ah maamulka gobolka Gedo ayaa maanta lagu rasaasayay magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo armaan waxaan ka wareysanay wariyay Jeylaan Xuseen Yuusuf oo Garbaharey ku sugan magaalada Garbaharey kolkor waxay yimid taliyaha guutada ciidanka dawladda gobolka Gedo Ismaaciil si nabad ah buu qaranka uga soo degay taliyaha iyo saraakiisha amniga la socotay kadib diyaaradda keentay baa waxay magaalada Doolow u doontay inay soo qaadaan rabtay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka maamulka Jubbaland wasiiro iyo maamulka gobolka Gedo oo hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka gobolka ee Macallimo diyaaradda Doolow ay tagtay wufuudaasi soo qaaday markii ay damacday garoonka Garbaharey inay caga dhigato oo runwayga baa rasaas waxa ku furay askar gadood ah oo banaanka garoonka taagnaa kuwaas oo diidanaa in wafdiga Jubbaland ay imaadaan magaalada Garbaharey rasaasta ayadahayd waxaa ka dhashay khasaaro hal askari oo boolis ah oo saarnaa diyaaradda ayaa dhaawac ka soo gaaray diyaaraduna baa ay kacday waxayna ku laabatay magaalada Doolow ee gobolka Gedo sidee garoonka agtiisa ay ku yimaadeen mar haddii la ogyahay ciidamadaasi inay gadood ka yihiin maamulka Jubbaland isla markaana waxaan ognahay maalmahanba in maamulka cusub ee soo magacaabay iyo gudoomiyaasha degmooyinkaba ay heshiis wada galeen arrintu saraakiisha hadda amniga waxay sheegayaan shil inay tahay waana la filanaynin in askar ay banaanka halka imaado ay rasaas ku furto iyadoo si walba loo diidan yahay marka dadka hadda furay rasaasta waa askar ka tirsan ciidanka dawladda garoonka ku sugnaayeen saraakiishuna waxay leeyihiin kama aan filanaynin in ay isku daygaasi sameeyaan marka garoonku gacan ku intiisa waxaa maamula ciidanka AMISOM oo qaybta ADMIS waliba Ethiopia iyo ciidamada dawladda waqtiga ayada amniga garoonka ilaalinay marka askarta qayb ka ahayd askarta meesha timid qayb ka ahaayeen laakiin gudaha aan soo gelino banaanka garoonka joogay diyaaradda guuxeeda marka ay maqleen oo inay caga dhigato ay rabtaan bay rasaasta ku furaan lama amaanka ee garoonka ku sugnaa iyo maamulka cusub ee gobolka Gedo miyay soo qabteen dadka falkaasi geystay ilaa hadda dadaalo waxa socdo lagu raad joogo dadkii falka ka dambeeyay iyo si baaritaan lagu wado dadka hawshan ayada ah asal ahaan ay ka soo bilaabatay wali dad hadda la xiray ma jiraan laakiin shirar ilaa galabtii daba jooga waxa u socday ciidamada iyo saraakiisha amniga u socday xaaladan si xal waara loo gaari lahaana ay tahay wafdigu Jubbaland maalmihii ugu dambeeyay Axmed Ibrahim ay mariyeen gobolka degmooyin ka tirsan haddana waxa ay ku wajahan yihiin magaalooyinka Baardheer iyo Boorkoobo oo marka ugu dambeysay ay rabaan inay imaadaan magaalada Garbaharey wufuudan marka maanta socoto waxay ahaayeen hordhac wafdiga madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland hordhac oo la rabay inay soo gaaraan magaalada Garbaharey maalmaha la soo socdo dhegeystayaal waxay warar ku soo kordhaa wararkeena barnaamijyada dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu eeba yiraahdo markaana maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ayaa maanta la horgeeyay askar lagu eedeeyay inay iibsadeen qoryahooda Ifraah Axmed Xuseen hayno faahfaahiso warkan saddexdan askari ee la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad ayaa waxaa lagu eedeeyay inay gateen qoryahooda isla markaana ay ka baxsadeen ciidamada askartan ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen guutada 24aad ee Khalid bin Waliid
islamarkaana tababar kusoo qaatay dalka Masar oo dhowaan dalka ay kusoo laabteen inta aysan iibsan qoryihii la siiyey. taliye Saalim Cumar Axmed oo ka mid ah saraakiisha guutada 24aad ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay siyaabaha ay kusoo qabteen askartan baxsadka ahaa. waan raadinay meel yiraahdo Nuur Dugle markay marayaan ayaan ka war helnay in sargaal oo joogo laba xidiglaha oo yiraahdo Axmed Maxamed Yuusuf yiraahdo ayaa noo qabtay nimankan markuu qabtay gaariga Cabdibilaah oo diray oo la soo kaxeeyay waxa la keenay Daar Nimco waxaan ka qaaday telefoonadii waxaan hubka sheega u ku xidhan waa gadanay cidii ka gatayna ma aqoon waxaan sameeyay telefoonadaan ka qaaday baaritaan ku sameeyay lambaradii aan wacay xiriiraan la sameeyay dadka deegaanka aan wacay in Cabdisliw joogo waxaan ogaaday xogti iyo cid qoriga laga gaday iyo lacagta laga bixiyay lacagta lagu leeyahay waxay 800 laakiin hal nima 800 la siiyay nin kamid ah waxa la siiyay 600 midna waxa la siiyay 700 lacagta marka ay qaateen waxay isku noqotay wadarta guud 2200 waxayna wateen 4 qasnadood oo rasaas ah iyo 180 baalooto 60 baalooto dheeri iyo 120 oo ku qasnada u jirtay marka nimankan hantida qaranka ay qaateen waa ay gateen waxa ilaahay nagu guuleeyay inaan dabagal dheer ku sameeyno oo isla maalintii sababtoo waxaan xiriir la soo sameeynay Alkowsar iyo Nuur Dugle xiriir la sameeynay waa labada wado oo looga bixi karo Daar Nimco markaan joogno wadada saddexaad waxa way waa in la aadi karo shabaab la aadi karo waana kuwaas hantida qaranka ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidanka qalabka sida Dhame Maxamed Sane ayaa ka dalbaday maxkamadda in lagu xukumo askartan qoryahooda iibsatay waxa uu sharciga ka qabo. eedeysanayaashan xafiiska xeer ilaalinta uu soo odeeyay waxay ka tirsan yihiin guutada 24aad ee Khalid bin Waliid. saddexda eedeysana dhammaantood waxay tababar ku soo qaateen dalka Masar waliba tababar heerkoodu sareeyo. sida taliye ururkooda sheegay eedeysanayaasha ma jirin baahi ku kalifi kartay inay gataan hantida qaranka. eedeysanayaasha maxkamadda hor fadhiyo inay ka mushaar badan yihiin ciidamada kale inay ka cunto wanaagsan yihiin waa saddex eedeysana ee dawladda Soomaaliyeed ee ku bixisay hanti iyo qarash fara badan mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh maadaama aysan jirin baahi ku kalifi kartay inay hubkooda gataan maadaama aysan jirin dhibaato kale ee ku kalifi karto inay hubkooda gataan maadaama aysan jirin mushaar la'aan ay ka cabanayaan ma jirto sabab ay ku kada karaan hubkii dawladdu u dhiibtay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh saddexda eedeysana mid walba wuxuu sheegay inuu qorigiisa u gatay $800 sidaas darteed qoryihii ay gateen oo dad shacab ay ka gateen lagana soo celiyay dadka shacabka ayna hantidoodii loo celiyay waliba oo qarashkii loo celiyay shacabka sidaas darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in lagu qaado ciqaabta uu dhigayo qodobka 186 ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 27aad gaashaanle Maxamed Amiin Cabdulle ayaa sheegay in dhawaan ay soo saari doonaan go'aanka maxkamadda. dhageysiga garmaqalka la xiriira eedeysanayaasha kala ah 1 dable xooga cotton 3147 Mawlid Daahir Xuseen 2 dable xooga cotton 2294 Ismaaciil Cabdirashiid Kaynaan 3 dable xooga cotton 2288 Maxamuud Axmed Ismaaciil Cali dhageysigiisa halkan ayaa ku gabagabeynay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta. maxkamadda sare ee Puntland ayaa go'aan ka gaartay tirada rasmiga ah ee xisbiyada siyaasadeed ee deegaanada Puntland. dhinaca kale ciidamada kumaandoska Puntland waxa ay sheegeen inay burburtay xabad joojintii magaalada Garowe laga dhaqan galiyay. Axmed Saciid Axmed. wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa sheegaya in maxkamadda sare ee Puntland ay maanta meel marisay 8 xisbi siyaasadeed kuwaas oo noqonaya 5 sano ee soo socota xisbiyada rasmiga ah ee ka jiraya deegaanada Puntland. ku dhawaaqista maxkamadda sare ee natiijada xisbiyadan ayaa ka dhigan in laga gudbay in doorashooyinka dadweyne laga qabto 3 degmo oo gobolka Nugaala kuwaas oo kala ah Godob Jiiraan, Dongoroyo iyo Garowe. doorashooyinkoodana la hakiyay kadib markii dagaal khasaare geystay uu ka dhacay magaalada Garowe. guddiga doorashooyinka ee ku meel gaarka ah ee Puntland ee la yiraahdo Tibik ayaa tilmaamay in shaqadii ay ka hayeen deegaanada Puntland ay halkaas ku soo dhamaatay maadaama natiijada xisbiyada siyaasadeed ee Puntland maanta lagaga dhawaaqay waxaana la eegayaa intaas kadib dhismaha guddiga doorashooyinka rasmiga ah ee BEC iyo sida ay dhinacyadu heshiis uga gaaraan. sidoo kale maxkamadda sare ayaa maanta ansixisay natiijada 30 degmo ee doorashooyinka golayaasha deegaanka laga qabtay 25kii bishii May ee sanadkan. guddiga doorashooyinka ee Tibik ayaa isna shaaciyay 8 xisbi siyaasadeed oo rasmi ah oo Puntland ay yeelatay.
puntland waxay mar kale hormuud u noqotay hirgelinta nidaamka federaaliga ah iyo kan dimuqraadiyiinta soomaaliya labadaba waxaa sidaasi yidhi wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax juxa kadib qoraal kooban oo ku qoray bartiisa facebook ma jirto weli wax wara oo ka soo baxay siyaasiyiinta mucaaradka oo ku aadan 8 xisbi siyaasadeed ee maanta lagu dhawaaqay arrintan ayaana ku soo aadaysa xilli maalmo ka hor golaha wakiilada puntland ay meel mariyeen wax ka beddelka dastuurka maamulkaasi iyo furista xisbiyada siyaasadeed ee puntland sidoo kale waxaan la cadeyn in doorashada madaxtooyada puntland la qaban doono sanadka cusub ee soo aadan 8 January markaas oo mar kastaba ay doorashooyinka puntland ka dhici jireen dhinaca kale ciidamada danab qaybtooda puntland oo iyagu diidan doorashooyinka laga qabanayo deegaanadaasi ayaa war qoraal waxay soo saareen maanta waxaana ay sheegeen inay jabtay xabad joojintii halka dhinac aheyd isla markaana ay dhawaan bilaabayaan jawaabka bixinta xukuumadda waxay sheegeen in marnaba laga aqbali doonin sharci darrada madaxweynaha puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ay sheegeen in waqtigiisii dhamaaday xaaladda siyaasadeed ee puntland ayaa kacsaneed tan iyo markii ay bilaabmeen doorashooyinka qof iyo codka ee golayaasha deegaanka bishii May ee sanadkan markana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga gaarka ah hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika Danjire Maxamed Cabdi Afi ra'iisul wasaare Xamse iyo Danjire Afi ayaa ka wada hadlay xaaladda qaxootiga iyo barakacayaasha ku nool dalka iyo sidii duruufahooda nololeed loo hagaajin lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay iskaashiga kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya hay-adda UNHCR ee ku aadan daryeelka qaxootiga iyo barakacayaasha gaar ahaan taageerada dhanka ilaalinta iyo nooliga ahi sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha qoraalka xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu sheegay in Danjire Afi oo dhankiisa dowladda Soomaaliya ku amaanay dadaalka ay ugu jirto sidii dalka loogu soo dabaali lahaa amni iyo xasilooni taasoo wax weyn ka taraysa xaaladaha qaxootiga iyo barakacayaasha dalka ku nool xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maanta waxa ay ansaxiyeen ku noqoshada miisaaniyadda dowladda ee sanadkan 2023 mar kale Axmed Saciid Axmed fadhi wada jira oo maanta ay mar kale yeesheen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay ku ansixiyeen ku noqoshada miisaaniyadda dalka waxaana ogolaaday in la ansixiyo 169 mudane halka sidoo kalena ay diideen laba xildhibaan waxa ka aamusay laba kale sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo kulanka shir gudoominaya xildhibaanada sharafta leh aan isdhegaysano natiijadii aan sheegaynaa hal xildhibaan ayaa diiday laba xildhibaanna waa ka aamuseen 169 xildhibaan oo isugu jiro dhammaantood xildhibaanadii iyo senatarada shirka waa wada jir 169 waa ogolaadeen sidaa daraadeed miisaaniyadda 2020 ku noqoshadii waa ansax wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Biixi Iimaan ayaa ansixinta kadib mudanayaasha uga mahadnaqay inay meel mariyaan ku noqoshada miisaaniyadda dalka waxaan u soo istaagay inaan idinka mahad celiyo anigoo bahda wasaaradda afkeeda ku hadlaya sida sharafta leh xilkasnimadu ku jirto aad uga gudateen waajibkii qaran ee idinka saarnaa xeer ka mid ah xeerarkeena ugu muhiimsan oo ah xeerka maaliyadda ama miisaaniyadda qaranka oo ah ku noqosho lagu noqday aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa idinkana mahad celinaynaa inaad noo ansixiseen talooyinka iyo soo jeedimaha warbixinta ku jira ee ay u geliyeen dadaalka joogtada ah intaasi kadib gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa wasaaradda maaliyadda iyo xukuumadda waxa uu ka dalbaday in miisaaniyadda iyo xisaab xirka lagu keeno waqtiyadii loo cayimay si looga baaqsado in degdeg lagu meel mariyo sharciyada anigu dirdaarta si adkaynahay tii guddiga maaliyadda soo jeediyeen xisaab xirida iyo maaragtay miisaaniyadda keenisteeda biraha loo cayimay oo dastuurkeena iyo shuruudaha kulligood u cayimeen inay ku keenaan taasaan faraynaa sababtoo ah markasta waxay maaragtay xildhibaanada caqabad ku noqonaysaa miisaaniyada waqtigeeda waa dhacaya la leeyahay ayaa imaanaysaa orod ay noqonaysaa arrintan hadda maanta waana gudubtay alxamdulilah rasiil adiga oo xukuumaddii matalaya noqon adiga oo wasaaradda maaliyaddiina madaxa u ah iyo guud ahaan xukuumaddaba waxaan leenahay
miisaaniyadaha iyo xisaabiyadaha waqtigooda lagu keeno si maaragtay xildhibaanada ugu baaran degaan ee labada aqal yacni u noqoto yacni dafdaf iyo hirhirig aan ahayn si degan sida loogu talagalay sharciga amray. ku noqoshada miisaaniyadda dalka ayaa mudanayaasha dood adag ka dhex dhalisay iyada oo xildhibaanada qaar ay sheegeen in miisaaniyadda aan la waafajin sida hay-adaha dowladda ay u kala muhiimsan yihiin balse loo kala badiyey si saaxiibtinimo ah. mudanayaasha ayaana soo jeediyey in arrintan aanay mar dambe ku soo laabanin golaha, sidaas ayaana maanta lagu ansixiyey ku noqoshada miisaaniyadda dalka ee sanadkan 2023. dhegeystayaal warka habeenimo waxaa idinkaga imaanaya shabakada wararka kulmiye. markaana akhbaaraadka dibadda haddaynu eegno ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay gantaal lagu weeraray dhismo ay degan yihiin dad rayida ku yaala dalka Ukraine halka ay dhaawacmeen 10 kale. 2 gantaal ayaa ku dhacay meel u dhow xarun dowladeed. wasiirka arrimaha gudaha Ukraine ayaa sidaas sheegay. dadka dhintay waxaa ka mid ah gabar 10 jir ah iyo hooyadeed oo 45 jir ah halka 64 qof kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen maamulka deegaanka. ruushka ayaa sheegay inuu sare u qaaday duqeymaha ka dhanka ah xarumaha ciidamada Ukraine oo ay kaga jawaabayaan weeraro lagu qaaday dhulkooda oo ay ku jirto xarunta Moscow. dhegeystayaal warkaan habeenimo waa naginta.